dhowr qodob baan rabaa inaan anigu ku soo gunaanado qiimaynteena ta ugu horeysa fahanka guud aan ka haysanno halkan taaganahay dowladnimada maadaama oo afkaaro kalena ay jiraan inaan isla hogaamin ahaan isla garanno kow waxaan soo marnay oo ku celinaa in badan background documenti kastoo la diyaarinayo dad maanta imika documenti lagu diro ama background ama introduction ama context baa lagu bilaabaa every document concept nood ha noqdo report ha noqdo wax walba marka sababtu waxa weeye waxa gudaha aad hadhow ku sharxi lahayd baad korka ku sii dhamaynaysaa hadal kastoo la yidhaana arar Soomaalidu ka bilowdaa bilaa arar ma dhaqo marka meelaha qaarkood haddii aan ku noqono wax horey loo yidhi yani saa loo fahmo ku dheeraan maayo laakiin waxaan soo marnay xagga nidaamka dawliga gaar ahaan nidaam burburaya la soo dhisay marka laga hadlayo saddex phase yaa hadda aan marayna waan isleeyahay phase-ka ugu horeeya emergency phase yaa la yidhaahdaa waa phase-ka degdeg macnaha degdemiska ee ugu horeeya waa marka yani hadda aan deegaankeena nimaadno meel dawladdii duntay xisbigii kala yaacay oo muxuu ahay isaguba dee xisbiga dowladda maadaama kala maarmayn isku xiran yihiin dumay kala guur dalka ka jiray oo guud isaguna saameynayay marka emergency phase-kii waxaan oran karnaa ugu yaraan sanad ayaan soo marnay waa xilligii maamulada dib loo dhiso muxuu ahayey reformyadii socday la bilaabo tiimamkii la ururiyo xaaladihii markaa taagnaa isku dhacyadii iyo colaad wixii la maareeyo xilligii la qaatay weeyaan marka waa iska waa cudurdaar maaha laakiin waa garowshay leedahay haddii yani waxyaalo badan oo guldaloolooyin xilligaa emergency-ga ay jiraan yani way jirayaan dadku xitaa wada shaqaynaya laftigiisu inuu isbarto waqti buu u baahan yahay oo la isqiimeeyo laftigeeda phase-ka labaad waa phase-ka transition-ka yani wixii waa la dhisay tiimashii waa la assemble gareeyey xisbigii intii gelaysay intii dowladda gelaysay intii yani wixii waa la kala sameeyey laakiin haddana phase-kii labaad ee kala guurka oo maadaama xilli oo doorashooyina ilan dowlad inta doorasho la qabtay oo kursi ku guulaysatay oo ay soo gashay oo nidaam dhisan la wareegtay lama ahayn marka in haddana kala guurkii dalka iyo kii deegaankaba la galo doorashooyinka muddo sanad ah ay nagu raftaan diyaargarowgooda iyo ka fikirkooda colaadihii kuwii ka jiray deegaanka iyo kuwii dalkaba xaaladihii disasterskii naturalka covidkii muxuu ahaa daadadkii waxyaalihii jiray noocaas ahaa iyaguna phase transitiona ayaan marnay transitionka waxaa u sii weyn baarlamaan aragtidii markaa cusbayd ee deegaanka in lagu hagaala rabay la jaan qaadi kara inuu meeshii soo galo maadaama isjiidad badan oo hay-adaha institutionska iyo kalsooni darro badan ay jirtay waxyaalahaasina way jireen waxay adkaynayaan laftigoodu processka adkaynta nidaamka dawliga xaalado la soo maray qaabka qiimaynteena hadda inagu socoto waxaa muuqata in aan hadda gallay facekii strengthening institution adkaynta waa la dhisay oo way dhisnaayeen ama inaga sii horreeyay dhisnaana way jiraan waxay inagu kusoo darnay way jiraan laakiin hadda adkayntii iyo saxiddii iyo facekii developmentiga guud ahaan stateku uu xoogga saarayay deliveryga inaan hadda aan gallabay muujinaysaa yacni inaan xilligii responsigii dowladnimada looga baahnaa dhan walba dhanka cadaaladda dhanka cadcadaanta dhanka maaragtay accountability dhan walba tiirashii nidaam dawliga lagu qiimeyn lahaa xilligeedii bilowgeedii inaan hadda aan gallay ayaa muuqata marka taa sidaa guud in framekaa guud in lagu fahmo way la quman tahay hogaaminta halkan joogtaana isku aragti ay ka noqoto qiimeynta hadda 2014ka waxaan isleeyahay waxayna siisay faham guud oo halkan joogna ah gaar ahaan shaqooyinkii la rabay inaan qabanno iyo geed socodkii intaba oo meelaha aan ku liidano iyo meelaha aan ku roonnahay intaba in fafaalo guud ay ka bixisay ayaan aaminsanahay ujeedadeedu taasay ahayd waxa aan ka muuqda in qiimayntu hadda ay shakhsi ka yar baxday oo ay institution yar noqotay oo cid wali wixii ay xogyaal ka tahay inay report organized ah oo shaqadeeda la xidhiidha keenayso halka qiimaynta inagu ka dhigan mayno baseline qiimaynadii ka jiray deegaankeenna oo kale inaan meel hoose tartan la gallo oo nidhaahno hadda ka hor qiimaynta marka la imanayo dadka waa la soo abaabuli jiray aragti xumo propagando hogaaminta lama socdo waxaas wixii ahaa inaan ka dhigano baseline ma aha
xogahan baan u sheegaynaa yani laakiin khibrado ka wanaagsan kuweena haddii jiraanna waa inaan doonano raadsano laakiin guud ahaan hadda wixii qorshe ku saabsan xafiiska qorsheynta inuu ka hadlo wixii maaliyad ku saabsan xafiiska maaliyadda oo la xoojin doono sidii hadda goldolooyinka hadda la sheego oo kale in laga saaro u baahan inuu ka hadlo wixii magaalooyin ku saabsan in xafiiskii horumarinta magaalooyinku by and large boqolkiiba 70 conclusionadii hadda la gaadhayay ku saabsanaa isaga uu ka yimaado oo report organized accountability iyo structure-kii waxaan ku noqon doonaa hadhow inuu hagaa ka yimaado waa wax maaragtay fiican oo institutions wixii ku saabsan adeeg bixinta xafiiska adeeg inkastoo adeeg bixinta ay ka ballaaran tahay xafiiska adeega shacabka performance evaluation-ka uu siinayo inkastay ka ballaaran tahay oo feedback-kii shacabka in lagu darana ay meeshii ay muhiim tahay iyadana inaynu bal meel ka bilowno meel hadhow hal hagaajiyey oo meel ay sal yeelato oo ayna noqon aragti aan habaysnayn inayna noqon oo shaksi oo haddii aragti shaksi noqoto laga yaabo shaksiga iminka xafiiska haddii lasoo qaado xitaa hogaaminta ay ku qaybsan oo la yidhaha xafiiska ka warrama oo biaskii shaksigu soo dhexgeli oo waxaa leeyihi qaraabe iyo qabiil iyo dan iyo waxa ay soo dhexgelayso inaan institution u wareejino oo nila institutionka ayaa qiimeynaya oo soo dhigaya informationka initialka awey hadhow informationku soo dhiga waxaa laga sixi karaa institution laftigiisu inaan saan idhaahno waa waxyaalaha positiveka ah soo kordhay ujeeddadeeduna waa sixitaan saa in maarata loo qaato weeyaan taa macnaheedu maaha inaan qiimeyno hadda ka hor 3 sano 4 sano la samayn jiray waa la samayn jiray qiimeyno waa la samayn jiray doorkan malaha yani habeynta institutionska ay gelayaan dhinac wax ku soo kordhay weeye dhinaca kalena inaan la wadaagno shacabka oo xagga communicationka aan shacabkii la wadaagno baa soo qiimana kuwan la mid ah ama ka adkaa waan xusuustaano halkan oo aan qabanayni laakiin la wadaaga shacabka saa daraaddeed shacabku waxay aragtiya qaateen in meeshii aan la wada hadlaynba oo muxuu ahaa gudihii yani waxa bannaanka laga sheegayo facebook waxaa lagu soo qoraa iminka waxaa ka mid ah halkaa biyaha daadanaya xafiis kama warhayo halkaa iskuulkaasi uu xun yahay inaan la isweydiin oo kale gudihii aragtiya baa jirta laakiin waa la isweydiiyaa day to day waa la isu weydiiyaa oo waa la wada shaqeeyaa si qiimayntan oo kalena waa la isu weydiiyaa shacabku inay ogaadaan marka in halkaas isla xisaabtan iyo iska warhayn iyo wax isweydiin inay jirto arrin muhiim oo soo kordhay weeye maxaa markaa ka soo baxay qiimaynteennii waxaa ka soo baxay in wax badan la qabtay oo ay ka mid yihiin kow ka jawaabidda abaaraha sanadkan maadaama sanad abaaray shaqo badan laga qabtay in qiimaynteennii goldolooyin fara badan oo abaara la xidhiidha ayna ka soo bixin abaaraha inuu waxyaalahan ku adkaynaya wanaagga ay soo kordhay sanadkan inuu ahaa dhanka amniga inkastoo xafiiskii amniga iyo cadaaladda iyo iyagaan maalmaha soo socdo si gaara aan u qiimayn doono haddana goldolooyin ay jirayaan haddana dhanka amnigana deegaanku si guud inuu yahay deegaanka ugu amni badan dalka xaaladda lagu jiro dal waxyaala badan oo dab ka dhex shidan yahay meel yaroo oasis ah oo ka duwan oo waxba soo gaarayn noqon kari maysid siyaalo badan buu ku saameynayaa dal dhibaato ka jirto laakiin baaxadda saameynteeda marka la eego innaga inaan aad u fiicannahay oo dhanka amniga in las dhigta laakiin aan ahayn marka hoos loo galana sidii meelihii kaleba caqabadaha jira way soo bixi doonaan waxaa kaloo soo baxday dhanka nidaam dhiska isbeddel inuu jiro oo hadda institutionadii laga bilaabo procurementigii hay-addii u qaabilsaneyd anti-corruptionkii muxuu ahay auditorka oo reportyo hadda halka aan ka soo jeedin laakiin baarlamaanka ka soo jeedin doona in waxyaalo fara badan oo yani awoodaha noocan ayaa leh institutionskan oo sanadkii koowaad iyo labaad aad loogu wareersanaa bayse wax sahlan maaha dalkan sixitaankiisu institutions buu baahan yahay shakhsi uma baahna nin fiican oo wanaagsan oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenah iyo uma baahna dalkan wuxuu u baahan yahay hay-ado la isku hadlayn karo oo jira oo wax saxa weyn marka aragtidii xitaa 2 sano 3 sano jirtay waragad masaal ka yeeshaan cabashada shacabku xitaa inay ku soo ururto xafiiska madaxweynaha ku soo ururto waxa la noocaas ah in laga sii baxayo oo hadda hoolkii institutionadu lahaayeen baarlamaankii shaqooyin baa hayaan maalin baad aragtaan guddiga joogtada ah hay-adihii weli ma adkaanin waa bilow laakiin hay-adihii shaqooyinkooda inay garanayaan oo iyagii ay silqaamayaan inaan institution usii soconno
oo aan ka guurayno accountability shakhsi ku salaysan shakhsi damirkiisa accountability ku salaysan oo la isku haleyn karin haday maanta fiican tahay biri xumaan karta shakhsu hadduu ku fiican maanta joogo ku xun iman karo hadduu ku xun joogo ku fiican iman karo in laga guurayo oo more institution based accountability isla xisaabtan institution ku salaysan in loo guurayo institutionskuna dabcan way dhutinayaan iyaguna ashqaas ma ku sixinaanayaan laakiin in xagga loo guurayo yaa ka soo baxday nidaam dhiska xaggeeda isla xisaabtan inuu soo fiicnaanayo dhanka mashaariicda iyadoo dhibaatooyinka jiitanka iyo tayadu intaba ay jiraan oo aan qaadanay in ugu yaraan sanadkan oo lacag la'aan badan jirtay dhanka miisaaniyaddana ugu yaraan lacag 3 bilyan ka yareen 2.4 bilyan lacag aynu gelinay abaaro iyo amni iyo hawlo kale oo nagu soo kordhay oo inta midna aan ahayn aynu gelinay in 165 mashruuc inay dhammaadeen waa boqolkiiba 250 macnaha half ugu yaraan mashaariicdii inay dhammaadeen 112 ka hadda mashruucee socda ee wareegay oo boqolkiiba 36 noqonayana kuwa badan oo boqolkiiba 75 ka sarreeya ayaa jira oo kwartarka hore ee sanadka cusub inaan xarig ka jarno aan u baahanahay marka haddii aan ku guulaysano ugu yaraan 6 bilood ee soo socota intaa dhimanna inaan ka faraxalano oo dhamayno intaa dhibaatooyin kalena aan saxno in dhankii mashaariicdana iyadana halkaan u baahnayn ma joogno goldolooyinkii jira iyadoo sidoo tahay ilaa kii wax la qabtay sanad ay caqabado badan ay jireen iyadana way ka muuqataa dhanka caqabadaha waxaa ka soo baxday koow adeeg bixinta goldolooyin xoog liinay jiraan oo in la isu marxabeeyo aan loo baahnayn adeeg bixinta dhankeeda cid walba degmo ha noqdo gobol ha noqdo maamul magaalooyin ha noqdaan xafiisyada heer deegaan ha noqdaan in adeeg bixinta xaggeeda goldolooyin ay ka jiraan hoos in loo eegana loo baahan yahay layskuna la xisaabtamo oo ayna noqon adeeg bixinta goldolooyinka ka yimid hadda la sheegay doorka dambe marka lasoo dhigo in la yidhahdo cashir baan ka baranaynaa taa maareynta hantida iyadana in dhibaatooyin ka jiraan taana waa wax soo baxay ka soo baxay qiimeyntan weeye maamulka miisaaniyadda iyo financial management iyo procurement waxyaalaha la xiriira goldolooyin waaweyn inay jiraan walow trending analysis haddaan samayno sanadkii iminka ugu dambeeyey duruufihii jiray ee mashaariiceed iyo systemkan soo hagaagaya detectionka mar walba reporting la sameynayay way ka soo ronaanaysaa ay ahayd haddana halka aan joognaa inay meel aad u hooseysa tahay oo processadii la iska garab marayo muxuu ahaayey loo arko inay caadi tahay processyada iyo nidaamyada la raaca laftigooda qaar fara badan oo ay ku dhex jirto muxuu ahaa sharci waafajin ay ku dhex jirto waxyaala badan noocaasi inay jiraan way ka soo baxeen inaan loo dulqaatana aynan ahayn haddii aan rabno inaan nidaamkan dhaqso aan ugu soo celinno traagi saxda ah isla xisaabtanka in iyadana waxyaala fara badan hadda halkan lagaga hadlayo qiimeyn in laga sugaba aynan ahayn haddii marta kolka dambana xafiis iyo tegaya marka shakhsiga in lagula xisaabtamo inay habboon tahay oo si guud aan loo odhan ama degmada dhibaatadaasa ka jirta ama gobolka dhibaatadaasa ka jirta ama xafiiska dhibaatada ka jirta qofkii dhibaatada sameeyey in waxaasa laga qabtaydo ay badato oo taana tallaabaqaadkeedii goldolooyinkaas iyadana in la soxo in loo baahan yahay ka soo baxday dhanka maamul wanaagga oo ay ugu horeyso yani akhlaaqda iyo muxuu ahay cadaalad falka hogaaminta oo ay ka mid tahay iyadana in hogaamin ahaan waxoogaa in hoos loogu noqdo meelo badan loo baahan yahay waxaa ka mid a oo hadda qiimeynteena halkan aan la soo dhigin laakiin hogaamintu isu xeerdhigasho badan oo laga hadlo oo qofku intuu xafiiska la tago hebel halkaa bal aduu ninkaasaan wadaa ii shaqaale adna sidaa ii samee waxyaala badan noocaasa oo hogaaminta oo nagu jira way jiraan ciddii howlaha ku wagnada inaan gaar ugala fadhiisanno oo wixii processkii sasixidda aan marno kuwii chroniga ahna in wax laga qabto marka cadaalad falku waa very important kulligeenna wey markaan ka hadlayno waxaan isku riixayna maaha dhibaatooyinkan kulligeen qaybaan ku lahayn inaan qaybaha aan ku lahayn iska saxno si genuine aan u qaadano wey laga bilaabo madaxweyne ilaa iyo qabale ay ka jooga inaan arrintaa aan qaadano goldolooyinkaas jiray duruufaha si shacabku kalsoonida ay ugu qabaan nidaamka oo dhanka cadaaladda ay maaragtay usoo kobcdo arrinta la xidhiidha qiimaynta xisbiga
isagana sanadka 2014 waxa laga yaabaa halkan wax badan oo laga tabayo oo hogaaminta aragtideeda iyo waa muhiim aragtideedu shalay marka laga hadla aragtideeda yani qaabka loo abuse gareynayo qaabka loo soo dhigayo oo ku salaysan targeting iyo shakhsi nacayb iyo waxyaalahan bala diidan yahay aragtida in la qiimeeyo qofka aragtidiisu waa sidee oo muxuu ah qualitative judgment laga qaato waa wax aad muhiim u ah aragtida laakiin waxay ku salaysan tahay ficilka uu qofku uu qabanayo ay ku salaysan tahay kuma fagaare kasta aragti fiican kaga hadlaya hogaaminta meesha joogta u marxabaynaya oo wax khaldan ka shaqaynaya jira kuwaan intaaba ku jirin oo laakiin wax fiican qabanaya jira marka ficilka aragti ku salaysan ilaa qaatadu waa muhiim laakiin qiimeyntii xisbigana 2014 xafiiska xisbiga intuu hogaamiyo iyadana organized report oo hogaaminteena guud ahaan waa sidee aragtidii guud ee xisbiga jahooyinkii xisbigu qaatay ma la socdaan mise lama socdodiina iyadoo consolidated in la keeno individual feedbackna loo siiyo dadkii hadda waxaynu ka sheekaynaa marar fara badan hogaaminta propaganda iyadaa la kule muxuu ahay iska horkeenka shacabkii dadka iyadaa la kule si general inay noqoto maaha waa ciddii xogta haysaa intay organize garayso oo institutionkii la soo mariyo in cid walba oo xubina jeerarkeeda kala duwan feedback loo siiyo arrintaasaad ku jirtaa tan iyo tan way caddayntu hawshaad joojin la yidhahdo qaabka loo yidhahdo oo aanay qaab isturida oo kala ama si general oo kala halkan ayna u iman iyadana in aan ka baranno oo aan saxno oo aan samaynaynaa waxyaalaha hadda aan halkan lagu qiimeyn oo hogaamintu meesha joogta integrityga kartida aqoonteeduna cid walba sida ay hierarchyga u leedahay waa loo eegiyo boqolkiiba 30 qiimeynta waa lagu dari wixii halkan ka soo baxay ee performance-ga guud ee shaqooyinkii loo diray ma la qabtada wixii kale ee judgment ah aragtida qofkan iyo integritygiisa iyo kartidiisa waa sideedana aragti marka laga hadlayo maanta dee aragti adeeg bixin mid cadaaladeed baa laga hadlaya aragti ururo iyo aragti waxa iyo fikir siyaasadeed suu ka yahay iyo waxa ma iyo hogaaminta suu ma jecel yahay suu neceb yahay iyo muuxanta iyo waxa ma laakiin aragti waxa laga hadlayaa aragti hantida ummadda in ammaanada loo ilaaliyo cadaalad in laga shaqeeyo in tusaale fiican shacabka loo noqdo waxyaalihii noocaas ahaa siduu ku yahaydu waa laga maarmaan in isweydiiyo ta kale waa arrimaha qiimeyntan garab socda media oo kale ah iyadana faham guud in laga qaato hogaamintuna ay si daacada ay arrintaa maaragtay u qaataan suuqa in lanaga hago inagu dowladdu mas-uuliyiintii baan nahay xisaabtankeediina ilaa heer baarlamaan wuu ina sugayaa hadda maanta halkii maalmahan ka hadlaynay baarlamaankiina wuu ina sugayaan walow feedbackgoodii uu qayb ka ahaa qiimeyntii halkan oo guddiyadii joogtada ahaa qiimeyntoodii aan soo qaadnay haddana dee guddiyada joogtada uu ka ballaaran yahay baarlamaanku markaan hadda tagno baarlamaankiina qiimeyntiisii way ina sugaysaa institutionally waxyaalaha aan ku gefnay halkan hadday jiraanna oo hay-adda fulintu ay iyadu ka ilduufta hadday jiraanna dee hay-addii legislativeka ahayd ee baarlamaanka ahaydna iyana inay noo soo dhigto oo aan halkaana kasii qaadano waa loo baahan yahay marka laakiin in dad ujeedooyin kale leh iyo dad aan gudihii nagula jirin systemkii oo xogta inagu aan haynin iyo maaragta dad ujeedooyin kale laba inay suuqa inaga hagaanna inayna sax ahayn qiimeynta waxaan u samaynaynaa maadaama oo mas-uuliyad ina saaran ay tahay inaan accountable ahaano ayaan u samaynaynaa inaan cid ku qancina maaha dowladdu way fiicanta waa isqiimaysay hadda tallaabaqaadki waa sidee baa iminka berri laga bilaaba in laynooga fadhiya insha allah haddii la yidhaah taa berri laynooga fadhiyayo iyo haddaan tallaabo la qaadayn in cidhiidhi iyo macnaha suuqa in lanaga hago oo tallaabooyin ha la qaado tallaabada la qaadayana haddaad suuqa dhex dhigto cid walba meesha rabta ay ula kacayso ayna saxayn dhinaca kale suuqaa laga leeyahay tallaabo maa la qaado darteedna aan khilaafno oo meelo sixitaan u baahan iyo wax in la hagaajiyo u baahan aan iska dayno oo aan khilaafno oo suuqaadna laga hayaan la odhanayna iyadoo sax maaha labadaaba inaan maskaxda ku hayno oo balance ku haysano wixii judgmentigana ilaahay nagu ogyahay isleenahay waxaas wax ku hagaagayaan xog ku salaysan cadaalad falid hogaaminta laftigeeda cadaaladda shacabka aan u samaynayn hogaaminta ka bilaabmaysa adoo xadgudub ka samaynaya halkan shacab kale ma shacabku waa intaan oo la balaariyo marka waan xadgudub lahayn oo shaqada la qabtay judgmentigeeda iyo performance ee ku salaysan sixitaana in la sameeyo waa waajib waana la samayn
إن شاء الله هدي ليدا فهم كجود لكن إذا كهجامي تبرن كيدو وكواس بدل كدي بيميت كوا ده كسب قلنا ويشران إننا صحاهين حكومات الناس حبسنتو لكن إن لو قادوا ويا قندراس ليا شو كله سيد المسؤولين تأنوها هذا اللي إندي باتوين بدن هيئات دن مشاريع المكان كهذا لينو أنا ليه حساب تميني وشتو قندراس اللي جاوا صوب هذينو قيبنا كادي باتل لفتيت قيب توقف بدن كبنا تانا إن قادنو ولا حساب تنكا قندراس لي دنا ستة أنت لوقاته يدون لو يجين وحكله ستة إن قندراس ليه لا حساب تنا شغال قعنتك هاي يكون قعنتك هاينين أنت نجا أن تشوفين يسوق قدي مشاريع الحمية بلاك ليست هالنقطة ريتين لو سمي هالنقطة أرنتان إن قادنا مشاريع ذا دكا كعيارنا وتيحيهم باليدي بزولين وحقلت باجرة قار تلاوة لقى قاضي قارن تلاوة لقى قاضي لكن أول قندراس ليدي وحق قندراس لوجس ويرد وما تقولن قندراس كذي أكونتينيتي الأنتوي قندراس إسي وعندنا كقاضنا يا لبري وحلي ويدين أنا مزمي ما وعنتو ما ذي هذا القيب كتادون هنتذا ومد اللي وعياري هذا الشخصي وبناك تشوف أنا ولا حساب تمي تقول النور يقول إسلامكم مزول حلا قاضون ما تاني اللي فهمه يا ومهم شقالها مانجمنت يدا الحبيسة اللي قبل لابو إلى أقاسيمياشة إلى حساباتك خلادات فربنا ودباتوينا فيشرة إن يجا إنه خسين بأكونتبيلتيو وحفيزك ولا حفيزتكم ليريو هذه حفيزكم دباتو ليه اللي يدا حفيز هيل حفيز إكس حفيز واي ما حفيزك على قاضي أنا كهين كلا بتري أنه كوا كوسية حسابات اللي قبل لابو اللي هي أكونتبيلتيو إن يجانا أيجادو أو أكشن كوقاضنا يو مالو كجل قشية حفيز إني نشرين تانا يعني ساعدوا قاضنا وحفيزكم بعينه اللي يرجعيو تلاوين عاد لقى قاضو يانا ولو بعياي ومسؤولين هنتي قعنتكوا يعني قاربا مسؤولين تو قانا قاريان كوا كبلارين قارية وماكروس هذا الآن له حسابتين مال هو سقوق بنايا تانا إن مرتي سعد تلاوين لقى قاضو وميم مسؤولين تيان لو يدين وهوس هيسقط توران مهم مسؤولين تنا ولا حسابتهم لكن كوانا إن حوجة صارنا ومهم أرمها ودنبين عن كسر كوبي وحوي استراتيجيك برايورتيز كان قادرني إن سكفان كان عن كل جين كو بيرها يبيها يعني دارشينهان بيرها يبيها وعن قيمة نقرشها هذا الرسول دونا مع المعصوص على كابيني جهور كذي إنه مكان موقع قرشه هنا إن عن هذا هوس وإجنو سافن بانكون دري تا إن هوس وإجنو ومهم لما يسترك مشاريع ده صعدة وأصلا قادرني يدنا كشقيسين تانا حفيسة إن ليس لوجي هو حلقة شقيسين يلا هايو سجودة إن نقول حفيزك عفمات محوك شقيسين يمحوب باهية حفيزك أخبار محوك شقيسين يمحوب باهية هذا كشقيسين أصلا قادرنا نرانو لكن وحلقة شقيسين إن مالدين وين يسكنرون الصلاة سنود دميسنا أرنتها سجل دولار شرتاهي كشقيسين تأميت هلا صاروا مركز قرشها على ديارنا يلفتيس على قطرو أرنت الدخلية إن أنكروا قادنا وولوا كامبين تضوات كان لقب لابو ما دام بشا لوضع بلود هذا تانية تكلا أي دبعة بند عضو إن هذا حبيسك الدخلية وأن أوامر تاسيني إن أكو عاون دمانتين ملول بن شغل ما أنت لقب تلفك إن قادنا حوله الدخلية إن حول ودقاتينه خارج دمشتا ولا جهد ليدنا دارش يجودو تلقون قاتوي ما دام حالة هذا ودقالة إن كشرنو إن آدم ودجالو حالها خرج كأنه إن يرينه ملول بو أنك يرين كرنو ومهم أمنية إلا أتكيو سيجاران مركز قيمة أمنية لقلوا حيننا قلت لولوين كأشرنا إن هوصلوا يقول يدنا تبتن عن أولاناي value for money procurement process وفنا أنت وحورا هيدا أمنية كمان دونا شلي هدي أي شهادة تقالما يأوي سيجارة هيد ما أنت سبب أقول نقطة مشرتو أما بليس هالنقطة أما اليوم بليس هالنقطة أما عد كلا هالنقطة وحي ودان يشقوي كودان تدكو حي أقرابي كلام مركز حكتي بعد هيان هل كان قلت له كثيرة إن نصحنا مع المعصوص على حساب تنكر ودي النووي كابينة نوان يو كونسوليت ريبورت ولا سو وداك دون ديال ليدا قلت له إنك تقلوا هوي قيمتها كصوب بحذي السعد لوصح دارش كان قاعدين هل كان يقول له إنك صوب بحي صحتان كذين لقاته قار سيستم كي ولا هجاتيو قار أشخاصتي ولا أو هاي اللي هجاتيو بليسمنت كي ولا صحو يا لو صحيا لكن قيمتها inayna noqon midun waan qaatay waxaan aan istiriyo mid aan ku xisaabtano noqoto wax qiimay wixii political go'aan u baahan waa saa wixii go'aan sharci u baahanna in dhammaan reportida halkan la soo dhigay inta la ururiyo la consolidate gareeyo hay'adihi ay khusaysi la wadaago heerarka doonaa kala joogaan cidii khaladaad ku jirtana lagula xisaabtamo inay noqoto cashir baan ka qaadanaa oo mid la oranay inay noqon taana waa in jihada aynu qaadanayno
aan ka dhigno weeye ugu dambayn isku fahanayaan ka ahaano mashaariicda sanadka mashaariic cusub oo kale haddii ay jiraan mashaariic cusub oo ay noo saamaxdo miisaaniyaddu inaan mashaariic cusub qabsanno kolkaanu eegno sida qorshuhu hadda yahay laga yaabo inaan waxba soo harin markaad eegto ahmiyadii hadda aan ka hadlayay haddii ay jiraan waxaan priority-ga siinaynaa mashaariicdii la ansixiyey ee hore loo ansixiyey muxuu ahaa baarlamaanka si cadaaladana loo siinaya marka go'aan cadaalad oo hogaamintu ay raalli ka tahay inaan qaadanno oo mamadowga halkaa una soo gelin oo qofka xafiiska jooga una soo gelin iyo cid kala toona iyo qofka madaxtooyada jooga intaba xafiis uniyana oo dhan inayna soo gelin marka si cadaalada oo caddaan leh ma laba mashruuc baynu u fasaxnaa oo cusub gobol walba ama gobolada dadku jijiga oo kale inta faafan oo kale 3-4 aan nidhaah haddaan dooni ma gobol kasta hal baan u ogolaana strategic project yaan siinaa inaan isweydiino gudaheena ahaan oo si cad oo criteria aan ku noqo inayna dhicin in dadku ay ku dhex arkaan meelaha qaarkood mashaariic laga fulinayo oo kuwii aan ahayn oo deedna hebel baa aan aragti noocaas ayna imaalin maadaama meelaha hadda inaan saxayno oo already qorshayaasha dhexdiisa aan ku aragnay ay jiraan haddaan isla qaadano strategically mashaariicda sanadkan ma wada joojin karno oo dee dadku inay isu xanimaadaan maaha meelo waxaa jira waxba aan laga fulin iyo meelo wax la geeyey marka kuwan ilaa intay kuwan dhammaanay haddaynu go'aan noocaasa qaadanno iyadana sidan baynu odhanaynaa halkee aan ka dhignaa in la isweydiiyo oo kale waa muhiim aan tusaale ahaan waxaan sallaxaad primary hospital oo kale aan tusaale usoo qaadan karaa aag shishe oo waxba aan weligii laga fulin oo loo soo dhagaxdhigay bay ahaayeen haddii ay noqoto sanadkan mashaariic aan fulin karno oo cusub hadday jirto priority ma siina oo kale inaan isweydiino tusaalaan soo qaadaya halka keliya maaha faafan iyo meelaha kaleba meelaha jira iyaguna noocaasa guud ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay qaabkii ay noogu dhacday qiimayntu dabcan qiimaynta kaladan waxyaalaha halkan aan ka barannay dhanka waktiga dhanka koobanta wax oo dhan waan geli doonaa ololaha dakhliga in la bilaabayo kulligii maskaxda inaad ku haysaan maalmaha soo socda cid walba hogaamintiina kaalinta kaga aadan annaga la socodsiin doona hay-ada nabadgelyada cadaaladda kulli laakiin cid waliba inay qaadato hawshaas iyaduna waa muhiim waayo dakhliga aan ururina wax inoo noqonaya sanadkana dakhliga kor baan u qaadaynaa kor inaan u qaadna waayo waxaa muuqata magaalooyinku wax ka badan soo saari karaan meel walba dadaalkii loo baahna haddii la geliyo inta la soo saaray in ka badan waa la gelin karaa runtii marka inflationkana account gareeya mararka qaarkood markaan figureka sheegayna hadda 8 billion last year inay la mid noqon baa laga yaabaa 8 billion sanadkana marka in kor loo qaado way la quman tahay maadaama potentialku ka badan yahay arrimaha faktarada kale aan ku xisaabtanana loo baahan yahay inaasaan ku soo koobi lahaa